dagaalo culus ayaa ka socda gobolka Waleega afhayeenka ciidamada xoreynta jabhadda oo digniin iyo sidoo kale hanjabaad hawada u mariyay maamulka uu hogaamiyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed Cali. haddaba maxay tahay hanjabaadda uu hawada u mariyay iyo digniinaha uu siiyay? waan idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal. waxaa sidoo kale barnaamijyadeedkeena aad ku daawan doontaan ciidamada mucaaradka ah ee kasoo horjeeda dowladda federaalka ee dalkaasi Itoobiya, gaar ahaan kuwa Tigreega ayaa la wareegay deegaano hor leh oo dhaca waqooyiga, bariga iyo bartamaha dalkaasi Itoobiya oo ay ku hareereysan yihiin ismaamulada Amxaarada iyo sidoo kale kuwa Canfarta oo deegaano badan ay gacanta uga hayaan. waan idin la wadaagi doonaa saaxiibayaal deegaanada ay gacanta ku dhigeen iyo qorshayaashooda xiga. waxaan sidoo kale barnaamijkeedii kugu soo gudbin doonaa inta hawada ku jiro dowladda Itoobiya ayaa ku gacan saartay qorsho hay'adda qaramada midoobay ay doonaysay. haddaba qorshahaasi muxuu yahay ay ka biyadiiday dowladda Itoobiya? waan idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal. waxaa sidoo kale barnaamijyadeedkeena aad ku daawan doontaan dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Tigreega ayaa waxa ay sidoo kale ka socdaan magaalooyin ay ka mid yihiin Falakeet iyo sidoo kale nawaaxigeeda. faahfaahin dheeraad ayaa kasoo baxaya khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaaladaasi iyo sidoo kale halka la kala jooga ayaan idin soo gudbin doonaa. qodobadaas iyo qodobadii kale nagu soo korro intaan barnaamijyadeedkeena aynu ku guda jirno ayaa daawan doontaa saaxiibayaal. balse muuqaalka intaan u guda gelin waxaan kaa codsanayaa daawade haddii ay tahay markii kugu horeysay channelkeen aad soo booqatay inaad subscribe saarto, like gareyso, sina share gareyso si muuqaalka aan halkan soo gelino uu gaaro asxaabtaada kugu xiran ayna u helaan macluumaadka ku saabsan dagaalada ka socda dalkaasi Itoobiya iyo xaaladaha ugu dambeeya xiisadaha dalkaasi ka taagan. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena. aynu ku bilownay dagaalo culculus ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay waqooyiga dalkaasi Itoobiya iyadoona ay ciidamada mucaaradka iyo kuwa dowladda federaalka isku farasaareen. ciidamada mucaaradka ayaa la wareegay deegaano hor leh oo ay dowladda federaalka ciidamadeeda gacanta ku hayeen, inkastoo aan la xaqiijinin dagaalada halkaasi ka socdo, isla markaana ay sheegashada kooxaha mucaaradka ah oo kaliya ay tahay arrintaasi oo dhanka dowladda aan laga helin wax jawaab ah oo ku aadan dagaalada saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay halkaasi. ciidamada mucaaradka ah ayaa guulahooda markaa sii jibbaaraya ka gadaal markii dowladda federaalka ee dalkaasi Itoobiya awoodeedu ay yaraatay ayna soo rogaal celinta ay saameyn weyn ku yeelatay ay soo rogaal celiyeen kooxaha mucaaradka ah. waa jabhadda oola iyo jabhadda Tigreega oo iyagu culays aad u xoogan saaray kooxahan kasoo horjeeda habka ay wax u doonayaan. qolyaha mucaaradka waa ciidamada dowladda federaalka iyo sidoo kale hogaamiyaasha dowladda federaalka uu ugu tuwan yahay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed Cali ayaa waxa ka gadaal markii uu kasoo laabtay furimaha hore ee dagaalka u suurto gashay kooxaha mucaaradka ah inay mar kale kusoo rogaal celiyaan dowladda federaalkana ay goobo fara badan ay ka qabsadaan dagaalo culculus oo ka dhacay halkaasina khasaaro iyo jab aad u xoogan ay gaarsiiyaan ciidamada dowladda federaalka ah. dowladda federaalka ayaan maalmihii lasoo dhaafay wax dhaqdhaqaaqa oo la taaban kara aan ka sameynin furimaha hore ee dagaaladu ay ka socdaan, iyadoona deegaano iyo magaalooyin ay qabsatay maalmo ka hor markii uu ra'iisul wasaaraha dalkaasi isagoo hogaaminayo qaar ka tirsan gulihiisa wasiirada iyo isagaba ay gaareen furimaha hore ee dagaalka ayna la wareegeen magaalooyinkaasi. magaalooyinka ayaa haatan waxay gacantooda ku jiraan qolyaha mucaaradka ah ee kasoo horjeeda hanaanka ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed Cali, iyadoona ay tala ku cadaatay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya mar kalena maalin ka hor uu dib ugu laabtay furimaha hore ee dagaalka si uu ugu dhiirigeliyo ciidamada dowladda federaalka dagaalkay kula jiraan kooxaha mucaaradka ah ee kasoo horjeeda. qaar ka tirsan kooxaha mucaaradka ah ayaa waxa ay ku dhabar adeegayaan sidii ay dib uga soo ceshan lahaayeen deegaanadii horey ay dowladda federaalka uga qabsatay ayna ugala wareegtay maalmo ka hor. isla markaana kooxaha mucaaradka ayaa waxa ay iminka dadaal dheer ku bixinayaan sidii ay gacantooda ugu soo celin lahaayeen deegaanadii iyo magaalooyinkii gacantooda ka baxay maalmo ka hor, dibna ay ugu soo celiyaan qaar ka mid ah magaalooyinkaasi, inkastoo ay jiraan weli deegaano aan gacantooda dib ugu soo laaban. waxaana weli deegaanada aysan dib gacantooda ugu soo dhicin kooxaha mucaaradka ah ka mid ah magaalooyinka waaweyn sida Kombolsho iyo Dashay oo iyagu ay si nabadgelyo ah uga baxeen
halkaasina ay la wareegeen ciidamo hoos yimaada dowladda federaalka ee dalkaasi Itoobiya isla markaana maamulada dalkaasi ka jira ee ka tirsan ciidamada taabacsan ee halkaasi la wareegay ayaa ku sugan waqtigaani lama oga soo rogaal celinta kooxaha mucaaradka ah ay ku soo rogaal celin doonaan deegaanadii gacantooda ka baxay oo ay ugu waaweyn yihiin magaalooyinka Kombolsho iyo Dese oo iyagu ah magaalooyin taariikhi ah isla markaana aad markaa u baaxad weyn markii la fiiriyo magaalooyinka ay horay ay u qabsadeen kooxaha mucaaradka ah waxaana ka mid ahaayeen magaalooyinkani magaalooyinkii ku faanayeen qabsashadooda kooxaha mucaaradka dagaal aad u qaraarna ay kula galeen ciidamadii dowladda federaalka markii ay ku sugnaayeen ayna qasaaro ay ka dhaxleen dagaaladii ay kula galeen ma muuqato mid ay ka quuseen inay ku soo laabtaan waxaase caddayn xilliga ay dib u soo laabanayaan kooxaha mucaaradka ah ayna ugu soo laabanayaan magaalooyinkan dhaca gobolka Amxaarada sida Desey iyo Kombolsho oo iyagu ah magaalooyin taariikhi ah sidoo kalena ganacsiga iyo warshadaha ay halkaasi ku yaala dowladda federaalka canshuur aad u fara badan ka soo gasho sidoo kale dagaallo xoogan ayaa gobolka Waalow ka socday saacadii la soo dhaafay qasaare kala duwan ayaa ka dhashay iyadoona dirirta halkaasi ka socoto ay waqtigan wararka ka soo baxaya sheegayaan in dowladda federaalka ah ay ku gacan sareyso isla markaana ciidamadii jabhadaha hubeysan ee gadaal loo riixay waxaana jirta warar soo baxaya oo sheegaya in qasaaro kala duwan ay isgaarsiiyeen dhinacyada iska soo horjeedo laguna qiyaasay qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ku dhawaad 100 askari oo labada dhinac ka kala tirsan oo waxyeelo ay ka soo gaartay oo dhimasho iyo dhaawacba iskugu jira iyadoona dhaawacyadii ka soo gaaray halkaasi ay dhinacyadaba mid waliba u qaadanayo halkii ugu talagalay goobihii dabiibida iyo sidoo kale daweynta ugu talagalay askartooda u geysanayo kooxaha ayaa waxa ay sidoo kale isku dayayaan in ay awoodooda halkaasi iyo culayska faraha badan ee dowladda federaalka ay saarayso ay iska dhimaan iyagoona la sheegayo in hub fara badan ay soo gaareen saacadii la soo dhaafay iyo askar gurmad ah oo doonaysa in dagaalka ay mar kale ku rogaal celiyaan si ay dib ugu riixaan ciidamadii dowladda federaalka ahayd ee soo kulaalay isla markaana culayska faraha badan soo saaray saacadii la soo dhaafay kadib dagaalo qaraar oo saacadii la soo dhaafay halkaasi ka socda dhinacyada iska soo horjeeda ee dalka Itoobiya isku haya ayaan kala awood badnayn markii la fiiriyo awoodooda iyadoona dhan waliba oo marba dhan markaasi awood ay gacantiisa galayso isla markaana uu qabsanayo deegaano iyo magaalooyin waaweyn oo dhaca dalkaasi Itoobiya markana dagaalo culus ayaa waxay ka socdaan gobolka Waleega afayeenka ciidanka Amxaarada waan yiraahday Oromada oo Daatarbiya ayaa waxa uu sheegay in guul weyn ay ka gaareen dagaalada halkaasi ka socda iyagoona ciidamada dowladda ku dhexmaray nawaaxiga magaalooyinka Begi iyo sidoo kale Asoosa oo gobolkaasi ka tirsan iyadoo ay ku gacan sareeyaan sida ay sheegtay kooxda Oromada oo la magac baxday hogaamiyahaasi una afayeenkaasi uu sheegay in ay qabsadeen magaalooyinkaasi iyo sidoo kale deegaanadaasi ka agdhow gudaana saaxiibayaal barnaamijyadeedkani aad ka daawanayseen wararka TV way naga intaa fadlan hadii ay tahay markii kuugu horeysay ee channelkeena aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saarato like gareyso siina share gareyso muuqaalada halkaan aan soo gelino si ay kuu soo gaaraan macluumaadka ku saabsan dagaalada ka socda dalkaasi Itoobiya. Waad ku mahadsantahay daawashada wararka iyaga.